السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad isweydiisaa maxaa wadan wal oo dunida ku yaala looga jecel yahay taariikhda. maxay u sheegtaan in ay leeyihiin taariikh fac weyn waayona soo jirtay wacdara soo dhigtay adduunka wax ku soo kordhisay waan iyo wala saqo cidna aanay kula dhici jirin. maxaa yeelay taariikhdu waxay jiilka soo socda bartaa ama jiilka dhalan doona ay bartaa cidda ay ishayaan ee cadaawad guunahi ka dhaxayso. waxay u kala saartaa xabiibkeeda iyo xoorkeeda. waxay tustaa wadada uu raaci lahaa warasadiisana ku barbaarin lahaa kuna beeri lahaa inuu iska eego ama soo dhawaysto. taariikhdu waa halka ummadi ay ka indhabeesho ama ay wax ka aragto. waa halka ay ummadi ku faanto ama ay farta dhexda ka qaninto. wax badan oo hadda dhacaya ayaynu ogaan doonaa sababta ay u dhacayaan iyo habtirsiga cadaawadda sida qaraxa maalin walba dhaca. marna ma isweydiisay ama naftaada ma su'aashay ama naftaada ma la shawrtay haddiiba taariikhda Soomaaliyeed ay la factirsato ama ay la dheerarsato tan iyo waqtigii fircoonada 1500 sano ka hor Ciise hortii maxaa loo waayay taariikhdii u dhaxaysay intaa. waxayna lahayn aqoon-yahano wax qora mise dunida ayaanu ku soo biiray 1700 yaab waynu leenahay taariikh guuna oo gaamurtay jilbaha dhulka ku aasatay ficeedna la gorgortami jirtay. waxaynu leenahay aqoon-yahano wax qora kutub badan alifay. waxaynu leenahay dagaalyahano dad badan hoog dhadhan siiyay hanado iyo hooballo. laakiin maye waa hubaal inay jiraan rag u xusul duubay una xagalka rooray oo u gucleeyay oo gucle iyo orod isugu daray inay taariikhda aasaan kuna duugaan qabuuraha. ma ogtahay in rag badan ay ballan ku qaadeen inay Soomaali tirtiri doonaan geeska Afrikana ka tirtiri doonaan iyaga iyo wixii islaamaba. waa run arrinka aan kuu sheegaya waa run way jirtaa. waan kuu sheegi cidda ay yihiin dibba waad ka ogaan ee ka hor diyaar ma u tahay inaynu u jarmaadno doonista iyo raadraaca taariikhdeenii aan taariikhda inta aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay soo heleen aynu ku raaxaysanne goosha dhankaaga ka soo fadhiiso. waxaynu kama dambays heli doonaa dadka godka mugdiga inagu riday ee inagaga tegay. waxaynu ogaan doonaa boqortooyooyin waaweyn oo Soomaali ah baalaha u kala fiday barigooduna ban kasta gaadhay bararada ay degan yihiinna cid aanay hawaysan jirin sida boqortooyadii Cadal, Shaawa, Herar, Godobeersi, Axmed Gurey boqortooyadiisii iyo qaar kale oo fara badan. la hadli maayo hooyo 60 gaadhay iyo aabba dhaafay toona. waxaan la hadlayaa kaagan dhalinta ah ama cadawaaga ayaad ogaan ciduu yahay kadibna waad waajihi ama Facebook iyo WhatsApp-ka ayaad ka dhex sheekayn oo kaga dhex dhurmi hadallada maalaayacniga ee sida shalay mid ayaan baanada saaray iyo hadallo macnaaca oo aan cidi kaaga baahnayn. daawade haddiiba la isugu habar wacday daahsaarka iyo dambabaska doogidda iyo dalluun kuridda taariikhdeena miyaynu isugu habar wacan weynay barashada taariikhdeena. daawade la soco qaybaha dambe ee aanu kaga sheekayn doono taariikhda Soomaaliyeed iyo cadawga ay leedahay ee goonka ah.